بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم soo dhawaada dhammaantiin saaxiibadayda qaaliga ah meel alla meelaad joogtiin waxaa la dhaqab shaxsade oo idin leh maalin wanaagsan jimco wanaagsan ayaan idin leeyahay dhammaantiin saad ku joogtiin maaragtay dunida dacaladeeda dadka Soomaaliyeed dhammaantiin xildhibaanka waa taqaaniin maaragtay maanta waxaan rabaa inaan barnaamij yar aan gow iraahdo soo dhawaada ma jecli inaan maaragtay isaga ordo waxaan arko marka kala tuura sheer dhaha intaad soo gashiin qof kasta maaragtay xildhibaanka la socota barnaamijka si tuurto war rubiga meelaha fadhiyay u taalaa laakiin waxaan rabaa inaan mar walba xaqiiqda ka hadlo barnaamij maaragtay waxaan rabaa bariyahan baraha bulshada socday oo aan la yaabay qaab uu yahay aan fahmi waayay inaan bulshada Soomaaliyeed u bidhaamiyo oo aflagaado u badan oo maaragtay dad wax ma garata ah ama kuwa maaragtay ka dhacay qadka tariinada ama siyaasadda ama meediyada ka dhacay oo macnaheedu qayma beeleen ay wadeen bariyahan aan arkay waxaan rabaa marka inaad ummadda Soomaaliyeed aad dhammaantiin aad barnaamijka aad maaragtay aad share tiraahdiin oo aad dadka gaarsiisiin si bulshada Soomaaliyeed u aragto waxaas qaabta daran bariyaha dhawaay waxaan arkay in rag iyo dumar iyo siyaasiyiin iyo qolooyin badan ay meelaha la indhacadiyayeen maama Saynab islaamta xaaska farmaajo haddaan sida kale u dhigo ama hooyada qaranka in maalmahan dhan maaragtay qaab qaldan loo kommentaariyahay صح ولا كومنتاري كرا وحبا laga sheegi karaa cid walba huwa xor laakiin waxaan daba jooga oo aan aad uga kululahay oo aanan aqbalayn oo ceeb keeni doonta in la yiraahdo maamashadiina waxay tiri beesha mursade igama daba hadli karto ana beesha mursade iyo maamashadiina waa xaas waa naag nin qabo waa gabar walaasheena waa gabar maaragtay ixtiraam mudan ma mudna in laga hadlo laakiin hadii laga hadlo in la yiraahdo beesha mursade iyo maamashadiina baleesada soo qaadaho وعب يلا أرق واي وإذا بدرو عن جد لوجو سو جنبان بيش مرصد وجاسي لا ده هاي إمام لا ده هاي قضية لا ده هاي سياسي لا ده هاي معركة الجري لا ده هاي وحكستي لا ده كتل شقو أيه هذا الويدي لا ده عم سينب وجبر حاسن قبو وشرفنت هاي تقف كي أيضا عايه أما معركتي كحد جدبي أيدي أطالع لكن معربة inaan iraado dadka maam Saynab inta soo qaata beesha mursado dhanay isaas tiri karay isaan dhaheen beesha mursado saa iyo maam Saynab isku daba wada waxaan leeyahay meelaad dadka ka gashiin iyo meelaad siyaasadda ka gashiin aad weyseen waa sheekadii Axmed Madoobe xaasaska rag qaba inaad comment ku raadisiin aad maraysaan waa idin ka dhamaatay siyaasiyiinta dallayda hadee dhacay dalka laga ciirshay mukulaal hilib laga dhigayaatiin inaad xaasaska rag aad soo qaatiin والله بالله تعالى وح معناه أن بلش الصوماليات يا ضد الصوماليات أيسن ماركتي أيسن أما قف عقلي أو صاحب عقلية وهيسن سواق على كرر إلى ما أنت براه بلش ذكينتين شيء كذي أحمد مدوبي سياسيين توعروا بحش أحمد مدوبي هير أحمد مدوبي أروح بحش أنا سيد وحواي واحد مرام في شاء أنا من كيقول لك أحمد مدوبي على دلمي أحمد مدوبي على عاي أحمد مدوبي على يال ما أنت واي كانن إني ما مسينا بناقر ننقبو ننحاس كيسي كده ما ويا حتى فرماجة كومنتاريس ومدحويني ضلك إسكالية عاية كومنتارية لكن حاس لقبو أبوي هو يضل ضلك وعوي ما مسينا بوقف إلهي شرفي وجبر عاي مجيسو أفلقا دم مجيسو ماركتي فالحمو waxaan leeyahay ka waantooba dadka baraha bulshada wada oo ragga waliba dumarku haba iska halaanay iska buraaqtamaanay anagu dumarka inaan wax ka sheegno dhaqan umalihin abiya isr umalihin kuma xad gudubno boqolkiiba 9 waa xiirina mi fahmaysin wala joogi jiray nin walba madaxweynaha oo dalkan soo marxaas u lahay xaaskiisa cid gaar ah wax ka sheegi jirta mal runta idin sheegaya hal la joojiyo xaasasku ragga qabo oo ragga xaniyaha looga dhigay ragga xaniyada loo daayo muhiimadda aan ka hadlaa waxay tahay tan kalena beesha mursade waa beel maaragtay wax u dhaha iyo wax yiraahda iyo maaragtay meel laga galo iyo meel looga baxale beel islaanu maaragtay u taliso ama aayooda islaanu ka hadasha ma ahan darrada iyo falaqda iyo hadalka aan geed loogu soo galma iyo wax ma garadnimada dadka baraha bulshada la fadhiya qaab qabiilad u hadlay
waxaan leeyahay waad ku ceeboobaysiin waana leeska kiin dhacaa dadkana waa ka dulduleela badantiin beeshaan mursade oo anigu aan ka dhashay waxa weeye waa beel ka mid ah beelaha Soomaaliyeed waa beel waxay gashay waxay gudal yaqaan waa beel sharaf iyo karaamo dadka Soomaaliyeed kule waa beel nabadeed waa beel la yaqaano waxa ay ma u socotay ma ay ka timid waa beel hoggaan leh waa beel aan khilaaf iyo qolaba meel degin waa beel aan jufo walba weel wax lagu geeyno jufo walba aan daasad la ordin marka adoo jufadaadu beel walba daasad la sidato oo jufo kasta koomba sidatay anagu intaan ku rabaa rabal baan ay leedahay beel isku tashatay oo isku tiirsantay oo halkaas degtay oo tiri ummadda Soomaaliyeed wixii anigu aan xaq u leeyahay ka qaada waxaan xaq u leeyna marrabo oo sadbursi marrabo illa caayo oo gabdhii xaasaska ayo ragga kala qabeen la soo qaatay leeyahay rabla tiri heer mursadsan hayaarga عيب ويا رجاس وعمباريننا عد كستو تراء عد كستو ياشا أو أفكو وصقلنا واسكد عينا سين معلن وحاس وعلى قبا نين كستا دل كان صومري أما مدحوينها أما مارة الرئيس الوزراء أما مارة حل دل كسو قبتي حاس ولاهي حاس كيس أنا ودتك كومنتاري مني نينك رجع يا حاس كيس مارة أنا كستوموين كرجع كلام بحنو دتك كستوموين كرجع كلام بحا ورجع حنيها أول دجن ومارة السياسيين تا المهد دلوا قاقلياش يدك سدان inay inta maaragtay farmaajo iska dhacayna hal mucaarasana dhaanay islaantiisa ku ordaan waxa sucaab bay idin tahay tabar darre idin tahay taal darrada idin ka muuqatay idin tahay kuwa maaragtay dhalinyarada ah ee baraha bulshada isticmaala ee ragga iska dhiga ee beejijkooda iyo maaragtay meelaha ay keenaan naagnin qabo ee maaragtay isaanay tiri kanay tiri le adeero uga caliya dadnimooda waa loo dhashaa dad iska dhigo saad qabsado sida rag u warama arrinka waa dhageystay asbuuc dhanaan arkaa habar kasta waa la soo orday xaasaska ragga ka dhamaada maama Saynab sharaf bay leedahay sharaf bay mudan tahay kuwa saaka jamiila wata saaka jamiila wallahi hada magac ilaahi oo maaragtay diyaaradihii caalamka u soo diray lor maxoga la hortaagano 7 qof oo inta soo wata heblaha daan la saareen raac ma yiraahan ogeyn anagu mana sheegin kama hadlin kana hadlimayno shaqadeena ma mi fahmi wallahi billahi taala يا كولور محوجة أنت ساقط دياردي أما إنجليز كأما ملاحظ قصة عطيلة سو أجستاجا يقولور محوجة جرب كوسارية أنا قلنا قين كمان هاللين كان هاللي منه ما نهرب إناش نضم مركب كومنت كبحنه هذا الرجال وجبناها رجع هلا ضعف رجب يلا نشان رجبا قبه رجبا إسكاله ضمر كومجرو كفتن كيو حبال إسكو وهاي هذا مركب تبر بيشان وأد سعويسين وأد جيد قبستين ويسين إن أدنين يا ناقة السوسفتين أد ناقن قبا أد كومنت يا قبيل كأي كذا لطي أد هذه قبيل كل شيء ساس كتري كان يكتري أد يروق عليه جبنا هذا نافينين يا هذا كل حين وأد حنيه يا كستوما دي فرماجو يوماركتي حاسكيس يا إذن كجدك أو تبردرادي ليدين جدتك الصومالية معدن كو سياسيين يا شعب سوجرة وماركتي قاب حموليته يا سراب رجواس عايجرة لكن دمرك إيو حاسسك إيو هوس إيو حنيها إيو استجمد نجيب رجواس قلا رجباس دجالا عيب ويه وايدين تبردر وايدين عيب إن تحاس نن رجوه قبعد مالين والبعض نن وين إيو نير إيو أد ماشي على الفردين ما فهم وحلنا مركا سينا معلن وهي تابوا وناقن قبا أنا أمانتي إذا أنا مربو عايدي إذا أنا مربو وجبر ولا شيء نمبا قبا فرماجة دار أنا قبش حساي وقبش حسدا وعيا سينبكما احترامه وقام التجوى مدحويني ذلك أيضا وحاسن قبو سيدا باحترام بيلا ذا وجبر نكر ربها قبو فرماجة قبو ماركتي مسكين قبو نندعس قبو قبو مت عرب دوريجي قبو جبر حاسة ولا قبو أنا جو رقم أبي إسر أملي نقول لكن وحنا يلين إن اللي يرادوا بيش مرصدين الغصة اللي فاقوا سينب عدة سينب عايا وضمر كأنه عايز أبرتي وضدك الصوماليات كل قانين anagu beel ahaan dhaqan iyo ab iyo dad wax noo dhaha iyo dad noo xisaabtama iyo dad siyaasadda noogu jira iyo dhaqan iyo kala dambeyn baan leenahay manihin kuwa maaragtay sagaalka dhaba ku socda oo jufo walba jid ku socotay qabiil sheegata maahin anagu ilaah baa naga korshay dad ixtiraan iyo kala dambeyn iyo meel u socdo jid lahana dadka Soomaaliyeed waxa way inaad ogaatiin weeye daanu banahay beesha karalle ama qaasatan mursade oo gaar looga dhawaajiyay marka waxaan leeyahay walaalaheen Soomaaliyeed baraha bulshada isticmaala kuwa aan dhaqan kala hayno isticmaalaan adeer uga caliya hadii siyaasad ahaan la idin kaga adkaaday hadii macnaheedu fikir ahaan la idin kaga adkaaday hadii media ahaan la idin kaga adkaaday hadii meel kasta la idin kaga adkaaday inaad xaas raqaba soo qaadatiin caab iyo tabardaradiina maalin walba joogtada u soo daadanaysay kamid saf gala ka leexda xaasaska ragga edabiyaasha isku aruura meel isugu bad intaasaan idin leeyahay hadalkaygu waxa weeye waa lama taabtaan intaas baan idin leeyahay
haddii aadan intaas ka waantoobin oo aan arko hadalkaas sii socotana haddee waxa waaye waa waxa rag loogu mahmahmale islaam baa waxay tiri culumay inta wacatay ay waxay tiri ari yaro ilaheed arigan ii quraan saara markii culumadii yalow ay tiri oo quraanka isku dartay ay inta islaan waxay aad hermiye xaggu jeestay tiri ilaahayow ay caymi culumadan ay ugu hadlayeen ay tiri wadwa culumaday wactay quraanka iyo akhriya tiri xagga intuu sii jeesatay ay waxay tiri ilaahayow culumada culumadan ay ugu hadlayeen caymi waa culumadii ay tiri ariga ii quraan saara cabaar markay haddana joogtay dabki iyo soo fiirso ay soo naqatay ay waxay istiri culumadaanu amay kullu goysaa markaas inta u timid ay tiri culumoy ariga si fiican hal igu quraan saaro yaa leeysaa humine si fiican hal igu quraan saaro yaa leeysaa humine anu waa idin jeedaa meel aad ku aamin qabtiin male siyaasadii dalkaad ka dhacdeen maaragtay meel kasta tagteen qof aad aaminaysiin waa iska waalateen afka iyo dabada qabiilaad ku raadiseen qolaad ku raadiseen maamul goboleedaad ku raadiseen irid kastaad ku raadiseen xaasiska ragad maraysiin adeerow gacali isku xishooda shame odiyaan idin leeyahay anu dadka markii laga adkaado waa aqaana wallaahi waa laydinka adkaada oo bilaahi waa laydinka adkaada aniga waxaan la hadlaa kuwa macnaheedu mucaaradka isku sheega oo qaab qabiil u hadla oo afar ilaas mucaarada nahale oo qabiil kaliya ka hadlay anu qabiil u hadli maayo laakiin waxaan rabaa inaan la aflagaadin dad jira oo dhaqan leh maaragtay gabdhahooda iyo arrimahooda looma gudbo dadkaanu waa dadka maaragtay ixtiraama ilaa iyo xad walaaltinimada xeeriya soomaalinimada xeeriya dhaqanka xeeriya siyaasadda xeeriya waanu ka digaynaa arrinkaas xaqiiq waa arrinkaas waa batay qola kasta oo afku wasaq leh oo dadku dhageysano inay gabdhaheena soo qaataan horena waa uga dignay waana ka shalaayayaan ayaga ceebooda meelaha taala ayagoo qaawan aan asturna anagu gabdhaha waa nugula yaqaana ayagoo qaawan oo baraha bulshada la wareejaa aanu ka dagaalanaa hon ka bixina sow marka mid asturan oo sharfan oo ilaahay boqoray inaad adinku sharafta ka qaadaan idinkama aqbalayn xaqiiq waa arrinkaas ogaada yaysan idinku gelin dheeldheel xildhibaan qabshax sida waa taagayaha mana ogoli dulmi qof kasta gabar kastoo Soomaali la dulmiyo ma ogoli kuwa dharra oo adinku dharka ka soo qaadeen qaarkiinan haaya asan Soomaalinimo u dhaaf asan siri anigu isu wacdi ayadoo dagaal naga dhaxayaan iri hoos dhigaan isir waa gabadhaad qaladka gali hadaad maagto dadka isaga dhici soo marka gabdhuhu gaar ay leeyihiin sayna macallin cid ka hadli karta oo habar u dhashay ma jirto cid ka hadli karta mi fahmi kartid cid ka hadli karta oo habar u dhashay ma jirto ninkii siyaasiga ninka maaragtay siyaasad ku jira ninka ceel kala ku jira haska dhacsho rag laakiin dumarka iyo xaniyaha iyo kastuumooyinka iyo meelaha hoos yaan la isku dhigin siiba rag dumarku haday rabaa iska cantal buraaqaan anu dumar siyaasad dumar waxa way looda iyo naaguba ayaga heetidooda ma turaan ayaga isdila arki jiro naag caaya anu waxba uma arko weligood dumarka Soomaaliyeed ay isu ordaano isu boodaan laakiin waxaan leeyahay rag adeerow gacaliya saad qabsada oo wax tara oo wax isku tara taawa inta waxaan rabaa marka inaan laba kelmadood ku daro oo aan u sheego dadka Soomaaliyeed in baddi Soomaaliya ay maaragtay arrinkeedu oo soo kululaanayo oo dawladda Kenya ay codsatay in loogu daro sanad inta doorashada ka harsan waxa igu maqaala ah in ay dhahaan siyaasiyiin maaragtay danleeya oo looga adkaa siyaasadda dalka oo adduunka ku fashilmay inay dawladda Kenya kula heshiiyeen ay dhahaan badda annaga idin saxiixayna annaga inaan soo baxno maaragtay doorashada nagala shaqeeyo adeero gacali inaad soo baxdiin iyo inaad joogtiin Ethiopia iyo Kenya iyo maaragtay Imaaraad iyo qolo walba adinka idin wadaa dadka Soomaaliyeed oo idinka adkaada oo la idinkaga adkaada doorashadan tii korreysay waa ogtiin inaan dal shisheeye waxba ahayn go'aan lahayn meelna tay karin waad u jeedin waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed qatarta nimanka mucaaradka ah maaragtay meel walba ku raadinaya in dalkeenu halis galo meel walba ku raadinaya in ayagu ay kursi fadhiistaan dalka inta yar iyo dadka ay gataan hal la iska ilaaliyo wallahi rag baa kula heshiiyay rag cabaadaya cila dhaaminaya dariiqyada taagan xisbiyada isugu baaraya qabiilka ordaya maanta ololeynaya Kenya heshiis kula jiraan in badda Soomaaliya muran la geliyo xaqiiqdu waa midaas runaan idin sheegaa dadka Soomaaliyeed ka digtoonaada qatar baa koos duugan waxa sanad loogu dib dhigay waxay tahay doorashada Kenya ay rag kula galay heshiis haday ayagu soo baxaan inay badda Kenya siinayaan tabardarro meesha ay ka gaarto inay kursi helaan shalana ayaga muran geliyay walina ayaga dabadu garta marka sac ninki lahay dabada uga taagan yahay marka aan joognaa dadka Soomaaliyeed ogaal ha yeesheen ha kaceen ha banaan baxeen ha ogaadeen wallahi waxa sanad loo yiri oo hadda kadib maaragtay muddo sanada loogu qabtay waxa weeye siyaasiyiintii shalay gatay ku ninkii yiri waxa jooga anigu badda meel lagu saxiixana ma ogeyn
meel lagu dhiibana ma ogeyn meel looga hadlana ma ogeyn oo madaxweynihii dalka ah waxaa jooga oo maanta ololeynayo siyaasadda Soomaaliya rajo kale ninkii yiri dalka ninkaana badda saxiix yiri oo adigu maxaa tahay who are you my friend markii ninkaan saxiix ku leeyahay baddan Soomaaliya iskale badda miyuu leeyahay badda miyuu asugu leeyahay raggaasaa joogo weli noolo siyaasadda Soomaaliya rajo kale see dad Soomaaliyeed iyo masiirkood aan uga aaminaa seen ugu aaminaa seen loogu dhiibtaa see bulsho Soomaaliyeed u dhageysataa see maanta aanu u dhageysanaa annagoo bulsho Soomaaliyeed runta inaan soo sheegno dadka Soomaaliyeed baan iyo qabiil iyo indhalaan ma yeelin xildhibaan qabshacsada waa soo jeedaa ma hurdo wixii shalay og yahay waxa biriyo u jeedaa waxa soo socda u jeedaa calooshiina waxa ku jira naqaana uu siyaasi dhacay oo aan ukun funtowda runta inaan soo sheegno nin dhan ee madaxweynihii dalka اللي يري وربدي كورن بدي انت جوجتا لا صحيح اي يري انو ما اوغي مeel lagu saxiixa ma ogi meel lagu gata ma ogi master ma ogi oo yaad maamul rabtaa dalka ba war kama haysidii hadii marka maxaa diidaya inay jirto qatarta in dalka dhan la iibsada inta adigu joogto adoon qabiilka ku hord adoon tabar ka raadin qolo shakhsiyadaada yu shala waxaad qabatay isfiiri horta dib isu fiir aniga dalkii la dhiibay badiis yaa la gatay mana ogi goor la gatay aniga dalkii aan wasiirka arrimaha dibadda u ahay maaragta dalka waxa la yiri maaragta saxiixa la yiri maxaanu saxiixana ma dhin su'aashaas ma weydiin maanta siyaasi ah waxaan rabaa inaan tartamo dadaan hogaama asan qoraxyo tama oo imaaraadaha hadan ay wata maalin kasta nin la hogaama anagu dal u dhiibeen dadka Soomaaliyeed waa fahmeen madax qable ayaa rabna xaqiiq waay madax qable ayaa rabna madax qable ayaa rabna madax Soomaalinimada ku jirta ayaa rabna madax wadaniyiin rabna madax inay ayagu dalka leeyihiin ayagu Soomaaliyiin dalkan xukumaanay wax walba oo Soomaaliya cirbad haddii qaadan la galaa in maaragtay master ma ogiyo berga inaad tiraa la imaam musikaro ilma dhadhalla kala wala inaad ordaa ma ka saarayso waa ku jirtaa in la saaya muhiima in runta la soo sheega muhiim adeer uga caliya dadkaan waa ku ogyihiin shalana waa ku ogyihiin maantana waa ku ogyihiin madax duub yaqaan raga lagu daboolaahe oo yiri abwaan horo waaba kugu dambaabay wixii dawlad ka dhigay mugo hora lagu dambaabay adiga adoo maaragtay qorasito kasita in lagu yiraahdo madaxweyne xaranaya runta ku sheegaan xildhibaan qabshacsada la yiraahdo cid iga ka cili karta ama cid iga dhici karta cid kasta oo qaldan dadkan anu saadkeedan bara aniga heer balaana aqaan kana aqaan calanka buluuga aqaan ninka waa taageera waxaan ku taageera wax qabadkiisa ninka waa taageera waxaan ku taageera wax qabto kuma taageereen qabiil adeer gacali siyaasi maaragtay shalay soo fashilmay maaragtay badi lagu hoos gatay yiri war kama haayo dadka soo wax bariga u baraanburaho ciidanka soo hala soo baxay yeelmayno dawladda god ku dhaco god adaa dalkan ku rid godkaad ku ridaa laga daldal waaya Kenya maanta kula jirtiin waa idin ogna rag badda saxiixay maanta waxaad isugu biiraysiin waa xoog yaro waa shisheeye u kaalmayn waa Soomaali ka carar waa muwaadinimo diid waa qaran dumisnimo ma ahan Soomaalinimo ma ahan badbaado runta soo sheegno dadka waa ogyihiin annagu ma jiifno ha sugina annagu farmaajan runtu sheegayna adinka runta idin sheegayna qof walba timaadaan runta idin sheegayna qof walbana waxay shala qabataan la ogyahay miiska u saareen ha isdhihin waa lagu hilmaamay dadka Soomaaliyeed waa soo jeedaan waxaan leeyahay qatar baa jirta bulshada Soomaaliyeed qatar baa jirta bulshada Soomaaliyeed heer master ma ogi waa soo naqdeen reer ma ogi dadkan dalku dhiibanay ma ogi yiri waay waa ma ogi soo markaas hur ya ma waalanta ya ma nawaalo haysa masacadana laga haysa yaad u sheegay waxaas master ma ogiyo yaad u sheegi yaa ka dhigaysa adeero ka cali fiiri annaga ma nihin ma liibaana lagu liibaan annagu ma nihin qabiil lagu ratay jidka loogu guuro markaas Axmed Madoobe iyo Jubbaland iyo danik halle dadka Muqdisho dhibaatooyinku ku dhaceen ma ka hadashin horta kuwaas buu dhalateen oo degantiin oo ka soo jeedin oo ku hooyatiin mi oo ka soo kacay niman gurigiisa dhibaatada oo ka soo toosa saaka ka halle guri ninkiisa dhibaatiiska halla ka war bal adiga fiiri bal istubidnimada noocaas fiiri dadka master ma og wuxuu dadku sheegaa fiish Axmed Madoobe la diid bakoorada laga dhigtay Axmed Madoobe sagiir kabiir gabar iyo wiil mucaarad iyo أحمد مدوبان أحمد مدوبان ديجا بلبدان دان بار ضدو عنا بار الماضي عنا بار أضيع عنا بار ويلو عنا بار وحجرضو عنا بار كدتكو كنوا لي أحمد مدوبان جر كوايس وما لنا لقى شيء المها بار كذا عروة ما رت سوشاجنو ما إلهي كعب صنو ما رب اللي كعب صنو يا حقوق دتكو عنا وكلي تلس أمحارة أو دتك كليها كلام بحوي وحنا قدام بيدون تعدي إلي هلك وكبحوا كبحيا أنا رحت كل شيء آخر كان جدك عبدي إليو ما هير مستر مأوجيو يا هير مأوجي
aniga magaca iga soo raadsada heer ma ogi yaa la yidhaa ha master ma ogi aniga ama koofida dheerayso ama gaabso كعاي ما شخصيا أنا personal attack no لكن وحربا إن كليه كحسوسيو دل كان شلاد مدح كأهد أضو وصل رأي قال وير مدح وين بدي أنت جوك تالا قطع مرحلة ترى تقعنا ما لقوا ديبنا ما أجي ما صحيحن وحشقانا كملي شقا كملي يو my friend شقا كملي يو إذا دلكوا ودي بنا شقا كملي وعرفت أسقى قبل شخصيا أصلا لا شقا كملي يعني ما أجي الله أنا ما أجي يا شاقي يا وشاقي هذيك يكون قبيلك كنت تاجر سنبل لين على العبتين صدق اسم الله أما أمان أما عاي أنا قبل شخص اللي يرى رمت والله لين على العبتين هذيك يكون قبيلك كنت تاجر سنبل لين على العبتين لكن أنت صوماليا أما واحد قرأت أما ضد نما كجرتو ضد كبه كوي حجاني وحي أجيهن رمت مان أنا مركز ترمت مركز رمت شكت عيالك في قلاب لا كفاكات قلاب لا كتر واني وقعنا شلي مركي عن فرماجو أو عن لهاي فرماجو أنت ku qaldan tahay laga isiisano laga isii jirteen ma wasogna adink laga mi sii jirteen way ogtiin hal ma qabsha si waa taqaan adinkay ahaayeen nimankii qabsha sida waa wadani lacag naga ma rabo hebel oo lacag miidin siina waa la ogyaa taariikhdan waa qorantaa adinka afkiina laga haaya qabsha sida waa wax qaldan oo ku dhiga nin kasto qaldan waa qabsa aniga lacag ima goyso qabkayga lacag ma goyso calanka buluuga aan daba jooga nin kasto calankan godobka galna maalinkiisa u taagana nin kasta calankan godob ka galay ee bulshada Soomaaliyeed ma kareem dhac isu soo maray ee ma ismadoobay sida islaan la frood libiska bedelatay ya naag xun iyo hays guuba markay ku dhaafaan ismadoobeeyaan uu odag ya islaantu mugaad tiraatan tuma ka tagto bari inta libisto ku dhala ku saamarsta arkaytii aad shala ka tagto dhibka ku geysato qurux badan oo laafiya sallallahu alayhi wasallam dhaaftato waa dawaati ogow libiskaas un bay waa soo ka turkays ya roobka guguna fashiiqa inta kugu yira alla kan roob ma soo mugo ku dhaafo inta gugu ismadoobe alla hal roob aniga u dhaafay carradaas kale oo aaday ya ويدن أقان هير مؤجيو ناك حن يحس جو بعتين دتك الصوماليين نويدن أجيين والله مجا دتك دافتين اسمه دوبيسين مركب كرسي قال يدن كقال أتكلم بيان اسمريسين أصلا رجع حاسس كده عايسين ضخم بعتين لقى أتكلم هذا يرى كرسي السوق هذا هاي ياشا ساد ياشا شبيل كدتك دم بلا ياشا دلك دم بيجا كقالات كمتين وأنا اللي يدن حسابه إلا حساب إذن كنت ما إن دومتين تحقول يدين لبا كن أويل أردنا يرى إذا لك حسوق لبا كن أردنا يرى يا هذا شار وطا الله أكبر أصيف نار وطا الله بكون أويل الدكت بدي على كتم أوجي أتري يا سري مرك دوما شوميا يا واي كواي يا وشيجي أنا I'm here my friend قف عندك يا رملي لما أنت قف عندك يا رملي ولا معارض ولا محافظ والله إن أنا قف كيلي بد الصومالي ما أنت أو دور الشدي سنة كده أنت عادين كده يريد كسر على ميسين اللي ندلكوا جدا وكل جود باد كل الدنكية تشي سكول تيواني دين أجنب بالشدة الصوماليين ما لا جوكتين بد أو بنام بحد ضل يدبت لجمع يالين دولة دكية كم يالين بدأ إن مالين القدرة وإن قال لك جارا محكمتنا أهو جان سمينا wax kasta oo ay ku xakunto oo hoggaansamina waa in go'aan laga gaaraa waa markii labaad oo nimanka mucaaradka heer imaaraad iyo Kenya ay dabada ka riixayaan ay rabaan inay badeena gorgor gashay saamasakeynayaan ay leeyihiin motion soo wadna intaan motionkan ka keenayno laba bilood gadaal u dhigta madaxweynahan ridayna habalaafada mi fahmi adeero gacaliya waxaas ma soconayaan badeena gorgortan ma gasho madax Soomaaliyeed iskale shacab Soomaaliyeed iskale saqiir iyo kabiir iyo waayeel iyo madax iyo majay ka dhaxayaan dadka afka Soomaaliga ku hadla iskale biyaha Soomaaliya بنا لقى تناسل كر لقى ما تناسل كر قرقرت لقى ما قل كر خنت هذه الشيء بلش الصوماليين ما لا معارضة أنا هي كي بطها قاعدة معارضة نوع سوت تغني سوما يا معارضة نوع سوت تغني ما نينك شلي يرمى ميان أنا وما أنت دبكعة ما دبكعة أيضا بدي دوت كجرت نينك ملحوينها ضلك كعيري أنا قبضنا ما يقول يبى ما ميان دبكعة ضدك الصوماليين أنا كاد الله هلا يا ما دبكعة سومرك قبش حسوا قبيلست ها قبيلستان نقهانو بدي هل ديبو نكان nin hawiyaha in adeerkay asaasan ku daba kaca masaasayalna cadaalad darri aan ku dunnay Soomaalinimadu ku dhuntay calankeenu ku dhumay aan ku qaymo beelnamiyaan daba joogna walaalayaal runtaas u sheegay Soomaaliyeed walaalayaalow xaqa u heliya wallahi inaan heer hebel waxin tirin wallahi inaan qofna waxin tirin wallahi nin shalay asige qarankeen iyo badeen iyo biyaheen god ku riday iyo kiisoo hoyday abshakuur soo hoyday qolab rati waxa u qabtaa جيل كلا لقى ناس سويدا لينا سويد مع ما أويا وبحش يعني أويا
عبد الشكور اويا شرانا خبصة الله يديد استافقين يا الله اويا نا الله كوتال الله حكومة ترى نبض عين كوجويا دام مغش وين عبد الشكور أفر لا ساقا قولي عبد الله قبتر اويا اويا يوم الفديس والله رنتن كل شيء اويا يو أنا واقو أقانا ننك اللي يرواي أنت محمد دقا كرت سبا الودي سب مقالة مقدشة دوجو أتكهل لويس أسد أويس فرماجة سب يديد حسان ليديد لقو منع علي كرو ما الفديس لقا مكر إمارات كاو الله وضع خنا الله وضع بلوغ خبرت شرت باباك هلا بيج كان صورني وعاد سبد شقاق للسوشيال ميديا كجرة عاد سبد دولة قدرة وعي وضعت مشرع كمدا مشرع انت كان عي وضعت إمارات مع المعذران ما لبان كانت ترسلنا هو إمارات قوتة واكما ويايو يا ما أوجي مستر ما أوجي يورن وركيسي marka waxaad leeyahay dadka Soomaaliyeed ku shala badeen ee barigeena gatay isnaag xun iyo xays gu waayay isoo keenna madoobeen markay ku dhaafaan qatar iska dhigaan yay xabad isoo keen madoobeen fanta shuruuf al-ard dhaha Soomaaliya ha noolaato meel allaala ma la joogo qabiilku ha dhaco qof kasta ee qabiileysta ee indhadhag xaaluna ayada iyo qabiilkeedu badda isku dhacaan saasaan leeyahay qabiileysta ma kaca waaye runtaan idin sheega qabiilka waa lagu qaraabtaa ninkii shala badeena gata asoo maaragtay fadhan la yiri badda oo ma oogi yiri master ma oogi dhabaantii waa maadsantii dadka Soomaaliyeed meel allaala meel aad joogtiin waxaan idin leeyahay maaragtay waqtiga idin wacnaado waa xildhibaan qabshax sidee mar walba cadaaladda la soco mucaaradka dheydkooda dhacay xaasaska ragga iyo kastumooyinkooda inay caayaan keenay ee ciidaha guryahooda ku wareeg meel tagi maayaan xilligoodi waa soo dhamaaday Soomaalinimadu ha waarto badeena gorgortan geli mayso Cabdi Shakuur soo hoyde oo shalay yiri aniga saxiix lagu dhaa how kam in badda saxiix lagu yiraahdo ayaad mas'uulta inaad maanta suud soo gashatay tiraadalaan wax weydiya dad Soomaaliyeed wuxuu sheega suurtagal ma shariif oo madaxweyne dalka ku sareeyay madaxweyne badda ka hor ma oogi ma lagu saxiixay ma oogi hayta yaa maamula yaa madaxweyne uta adeerow gacali annagu adinki baa tiin liin dhacdaa tiin dadka Soomaaliyeed weydii yaqaanin maantay qof idinka yeelay iyo qof idin dhageysay iyo bulsho Soomaaliyeed maqlay male dhamaantii waxaan rabaa barnaamijka inaad share gareysin meel allaala meelaad ku aragtiin meeshaan waxa weeye Soomaalinimo la rabaa qabaal rabaa dadkii gabar hoggaansan jiro ka haysan jiray ee shalay Itoobiya ay wadatay kursiga inta lagu fadhiisay sidii geel safraa meel la fadhiisay jir kuwaas waa naqaanaa siyaasadaas waa la soo dhaafay xilligoodu waa dhamaaday madaxtooyada inta isu yeerasay kulundiyaa odgac ku cuni jiray laga dhaqi waayo subaga ay cuni jireen madaxtooyada iyo muufay odgac ay cuni jireen madaxtooyada asay dirbi walba ku wasaqeen madaxda qaranka maanta joogtay madaxtooyada milyan si galsheen si looga dhaqo odgac iyo subaga iyo hilibka ay xalweystay ay ku ruugi jireen subag iyo asay meel walba isaga tiraayeen darbiyada subagaasi odgacaasi muufadaasay rabaa dal iyo qab iyo dawladnimo iyo meel loo socdo ma oga masquulo dhadhalo sida qaxooti dhex degsan madaxtooyada asaa 700 family dhex degsan qaxooti asaa muufada lagu dhex cuni jiray adar waxaan waagna hanaga hadashiinina qalbigayda taqtaqay adinka iyo qaab daradiin iyo maamul xumadiin weydin ogya madax Soomaaliyeed oo maanta qabl laha timid oo adduunweynaha la xisaabtamay oo gaaladu sida rabaay u dhageysay arrinti odgac aad cuni jirteen iyo muufada waxa iska kalkaas iska ruugi jirta meel adduunka meel ka jir waa la dhaqi waay درب كسته جنفي صوك أضقع صبي سكت كذا صبح فاضل الرسال ما ملعوبة إلى وانو قدر إلى وانو سؤال ضد دولة ما يقال مامل يقال نظام يقال قال دي يقدروا أكتر أنت كيف دي ستلو يرى إكسلنتي مستر ما ركتي سفارة تركي إنجليش كا يقول يرى أهل هلو يرى سيدي عربي ولا سوديها مدح وحاش على الويره عالمك انتو تقطق بيه اللي جنتيه كلا دنبيسه وحال اجرى سفيرك السعودي قايبها مدحوينها u horeeya ما شيء dhoobaha sida geel baadi inta ordaaray ay sida geel aruuray agaasimaha iyo duqa magaalada madaxweynuhu ugu horeeyay safirka Sacuudiga soo dhaweeyay meesha dawlad safir wasiir madaxweyne erkayga qaramada madawaa soo socday madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha gudoomiye duqa magaalada ay qabto Allah safra xaanful inta odgac ka dhargaan ay u dureersan jireen adeero masaas dadkii Soomaaliyeed waa fahmeen dawladnimada waa leeyeen fahmay qabiilna marrabna qabiil ha dhaco qarannimada ha toosto rag madaxa oo maamul yaqaan oo kala dambeey yaqaan oo nidaam yaqaan sidaas aan idin leeyahay dhamaantii waxaan idin leeyahay saaxiibadii qaaliga taageerayaashayda soo dhaweeya xildhibaan qabshax sida waa taqaaniin waa jabeen heer mucaarad inay xaasaska ragga caayaan keeneen noloshay ka dhaceen waana la iska dhacaa xildhibaan qabshax sida hadduu ku soo kaco waa jabeen
ديشان أنا قبالة فولا ويران هاي عدنا ومجوجيو قفنا ما أقان قفنا ما نجيست قبيلنا إجد نحجوح معي ذلك سوما لنا قلت غاني ننكستو أي قلدن سيد كيسان مرسيها دمبانتي وما ستين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قف كست برنامج كان حساسي عرقتو شير بيج كمسؤول سر لايك شير لصعو يوحل دبانكو كنافن هير أدقع عني وأكشرن طاي أيانتان أدقع عسندرينا رجع أدقع ياها أدقع سيجارة وها أدقع دخشي شبرتوها هرشي شبرتوها لو عملوا أدقع ياها زازلين مدحتوي أدقع يا كلامك ياها أسي مدح الروعة أي صفق وسوق لي جريت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت شرقري برنامج كان